السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan rabaa inaan idinka sheekeeyo qiso yar oo maaragtay waa aan iiga sheekaysa gabadh asxaabaan nahay. waxaa jirtay gabadh aad u yar bay ahayd runtii nolosheeda markay calashaan iiga sheekeynayso waxay ka bilowday markii yaraanteedii bay ka bilowday. gabadh aad u yar bay ahayd, iyadoo yar bay guursatay. markay guursatay waxaa jiray wiil oo isku meel ku koreen inay isguursadeen oo calaf ilaahay iskugu daray. runtii wiilka si fiican uu dhaqanayay, nolol wanaagsan ay gabadhaasi ku jirtay. kabacdi waxaa soo galay reerka ay guursatayna reer hanti la bay ahaayeen. waxaa soo dhexgalay arrinkeedii dhoof. gabadhana markii horeba dhoof sugay ahayd, walaalaheedii reerkooda dhan way wada dhoofeen, ayadana dhoof bay markaas sugaysa. ha sugtay maba xumo. markay maxay ahayd ay gabadhii ilmo dhashay, kabacdiba waxay damacday inay process wax xiraysato. ninkeedan wuuba ogaayo, de wayba ku tashteenba markii hore isguursanayeenba way isla ogaayeen inay gabadhana maray noqotaba ay dhoofi doonto, isla ogaayeen. kabacdi gabadhii waxaa dhacday ilmay dhashay. ilmihii markay dhashay arrimaheedii iyo dhoofkeedii hawlaheedii bay gashay. markay ilma dhashay waxay damacday inay iska tagto, hadhowna ninkeeda ay saas kusoo qaadato ama ay isku yimaadiinba. bas marka arrimaheedii ninkeeda u sheegto waxay ku tiri hadda maadaama awlaad haysto waxaan rabaa inaan dhoofkayga iyo hawshaydii guda galo. marka waa saas loo soco. haye buu yidhi, waxba kamuu qabin. wuu la diyaar buu la ahaa. alaabteedii iyo gurigeedii iyo wixeedii oo dhan bay damacday inay dad ku wareejiso oo iska gadgaday. de adigu bucketman iyo wax ka aruursatay, isagana lacag bay ka qaadatay. kabacdi way baxday. gabadhii waxay u baxday wadamada laga dhoofi karo ee maadaragtay processka iyo waxaas laga geli karo de safaaradaha leh. soomaaliya gabadhu deganayd. soomaaliya marka safaarad markaa male, iyadoo waxay tagtay markaa meelo safaarada leh oo processka ka howlgali karto. ninkeeda raalli buu ka ahaa, uu kaxeeyey, safaaradihii buu geeyey, guri buu ijaaray. markaas gurigiibu sidii ugu kareeyey uu soo kaxeeyey reerkii. guryihii markuu la kareeyey uu reerkii dejiyey. gabadha intii processkii hawlihii ku jirtay baa ilmo uu calool galay saddexaad. markaa iyadii uurkiile processkeedii hawlaheedii wadata ayaa markii hawlihii dee isagoo xumuudayayba dee isla markaba maad aragtay inaad dee miiska u saaran yaho loo odhanayo waa kun hawlahaagiiyo dhaqaaq. dee dhoof iyo processna waad ogtiin ad wixii baa yaro raagay. isagana dee fasax buu shaqadii waxay kasoo qaatay. kabacdi wuxuu yidhi walaali anagu meeshan ma de intaasoo dhan maku xayarman karne, inakeen gurigeeni aan ku laabanayna, marka wax kuusoo dhadhawaadaan aan soo noqonayna. waxay tiri maxay ahayd? hayey tiri waalidkeed bay la tashatay iyo reerkoodii. waxaa lagu yidhi gabadha ahaa haddaad bixitaan u jeedaha bartaadaas joog oo hawlahaagiyo processkaaga ku dhamayso, halkaan iskala socono. haye waayahayba. wiilkii uu sheegtay waxay ku tiri walaalo dee reerkii saasay yidhaahdeen, maadaama maxay ahayd hawlahayga ii socdaan, halkan ma iska joogaya, halkan nagaga warhay oo dee waata gurigood noo karaysay, biilka naga soo bixi, telefoonna nasoo wac, halka aynu iskaga warhayno. iyo haye baa lagu kala tegay. wanaag baa lagu kala tegay iyo weji wanaagsan. kabacdi markuu wadankiisii ku noqday, dee inay xaamilo tahayna uur leedahayna markaa walaacay tahay wuu ogaa. ilmo kalena haysatay wuu ogaa. wadan dee maaragtay qurbo ayna dee maad aragtay qurbana maahee dee adigu wadan kale oo dee magaaladii deganayd ahayna tagtay. maxay ahayde wuu ogaa. uu laabtay. markuu saas u noqday wiilka telefonaba ma jirin, dee adigu u xidhay maad aragtay xidhiidhkii ayuu jaray. xidhiidhkii markuu jaray gabadha waxay isku dayday inay wacwacdo raadiso meelaha maaragtay shaqadiisii waxaasi nambarkii ka haysay. shaqadii wixii bay wacday. shaqadii markay wacday waxa lagu yiri maxay ahayd? ma jooga dhowr jeer lagu yiri. waa iska qanacday. farahay ka qaaday. faray markay ka qaaday reerkoodii waxaasi raadisay. reerkiina waxay yidhahdeen walaalay dee isagoo un raadi, anagu ilmihii sidiiba 9 bilood waqtigii ugu go-ay oo gabadhii ugu dhammaaday. maxaan ku dhahdaa waqtigii markuu u dhammaaday ilmihii way dhashay. markay dhashay kabacdi way raadisay, stiil way weyday. bas markay ka quusatay iska dhaaftay. processkeedii hawlaheedii baa usoo dhadhowaaday. ayadana arsaaqadeeda ilaaheedii iyo ummadda ilaahay iyo dee reerkooda hayay. ilaahay de maxaa la yidhi nin 4 irdood qofna kama soo xidhe. sidii waxaydba marka processkii usoo dhammaaday baa waalidkeedii la taliyeen reerkii. waxaa lagu yiri ilmahan soo tusaabihii reerku ka dhashayna reer iska ladano shaqaysto oo waxaysta iska ahaayeen. ilmaha soo tus. ninkiina dee soo ogow maadaamaad baxaysid saad kusoo noqonaysa ilaahay baa oge, bal isagana soo ogow xaaladiisii dee wuxuu ku sugan yahay. nin geed qariyo geerina u dheer, qofka xitaa uu dhiman karaa inkastoo geeridu qarsoomin oo la maqlo qofka meel kastuu ku dhintay. laakiin de waxaaba la yiri wax kastaa dhici kara orodoo bax wadankii tag.
gabadhii way soo baxday wadankii wiilku joogay bay timid ee Soomaaliya ku soo laabatay markay ku soo laabatay waaba ninkii reer iska dhaqanaya oo naa guursaday oo maxaan ku idhaahdaa adigu ilmo muu dhalin laakiin reer leh way soo laabatay gabadhii markay soo laabanaysay sheekada aan soo kala dhaafay gabadhii markay soo laabanaysay mayna haysanin pocket money mayna haysanin ilmaha caanihiisii wixii oo dhan ka dhadhamaadeen oo ilmadee 3 cunug ciyaar maaha caanahoodii iyo cuntadoodii iyo waxoodoo dhan waxay gaari ku raacdana may haysanin asaga nin shaqaysto waxaysoo ahaa reerka loo yeeshuu guursaday reerka kaluu guursaday weyno shaqaysato waxaysatay ahayd bas markaa waxay ku tiri walaal haye dhibba ma laha anige warqadayda isi wuxuu yiri wax warqad ku siinaya ma jirto hayba warqadii ma siinaysid ayadana wadanka waa lagaga badan yahay marka cid uga qaada iyo cid u dacwootiyo ma haysato dad oo de Soomaalida waa la wadayahay laakiin waa la kala yahay waa ogtiin hayba ku tiri ilmahaagii baa bilaacaana waxaan gaari nuul kaga dhiganana ma haysane marka maxay hayday bal nuuliga naga sii bixi walaal nuuli baan hayawaan idinka sii bixini hebel baan waa wiila isaga marka wax isku yihiin oo haysta maxaan ku idhaahdaa wuxuu lahaa meel bu business lahaa ma dukaan mise waxay ugu tiri ma garanayo supermarket wax saasuu lahaa wiilkaasaan idinku ballaminaya wiilka u tag ka qaado waxaad u baahantahay nuulkaagii caanahaagii waxaad u baahantahay ka qaado oo ku kaa nabadgeliya hayabay tiri iyadoo ban dukaanka ma garanaysa meel alaaliya meelu ku yaalo ilaahay amarkiisa wiilka laftiisii uu u tilmaamayuu leeyahay orodoo u tag number buu soo siiyuu leeyahay numberkaa ka wac numberkaasaa dukaankiisa waa lagaa qabanaya oo laguu tilmaamaya numberkii iyadooban weli dirin isagii laftiisii suuqa bartamihiisa kaga soo horbaxay salaamu calaykum wacalaykum asalaam war hebelaayo ii waran war hebelow heblaayo ii waranood waa la iswarwaraystayoo naahayo kano macruurtan ma maxay ahayd caruurtan markaa way wadataa caruurtan macruurtiiba ahaa intanna waa intii horeed igu ogeyd ilmahana waa ilmihii dambe kusoo biiray maasha allah adeerseetiin u fiicantiin marka waxay ku tiri walaal waxaan rabay haddaaban ilaahay baaba iga kaa soo hor saare taleefankan uu ii qoray magaciisii waxaan doonayay in uu igu kaa ballamiyey wuxuu igu yidhi orodoo u tag magaciisii wiilka u tag mar raba magacyadooda inaan sheego maadaama way dhici kartaa in dadka la garto marka waxay igu tiri walaalo qofna magaciisa ha sheegin sheekada uun si guud uga sheeke waxay tiri walaalow dee walaalkaa wuxuu igu yidhi dukaanka tago waxaad u baahan tahay ka qaado wuxuu yidhi walaalo horta nambarkan aad wadatid aanu shaqo kuma lihi waa kow kabacdina aanu dukaan maba lihiba ka sheeke dukaan wax la yidhaahdo anigu maba lihi waxna ma haysti ninkaas isagaaba lacag haysta isagaaba shaqaysta xalay markuu yimiday anagu nala seexday aanaaba isaga shaxaadayba ma garatay marka wax la-aani ma haysee walaal adigu ku wareerinayaa de haddaad wax haysatan wallaahi haddaan anigu hayn lahaana maanta walaaltinimaan kuu siin lahaa waayo qof aan aqaano oo walaashay ah oo awlaadayadii haysaa tahay waan aamina way dhici kartaa waan aamina haye baan idhi waxba maaha gurigii aan joogaan iskaga laabtay guriga waxaa lahaa caruur aan ilmaabti koranahay ayaa lahaa iyo hooyadoodna markaa way ka maqnayd hooyadood baa aniga waxay ahayd kabacdi waxaan idhi saas iyo saasaa igu dhacday wiilka guriga iskale wiil shaqeeyuu ahaa wuxuu igu yidhi walaala anaa maxay ahayday nooliga kaasii bixin laakiin caaniya waxaa kuuma heli karee wakaas iska bax haye baan idhi nooligii wixii baan maaragtay ii soo jaray gaadhigaygii baan kusoo noqday gaadhigii markaan soo fuulay sumini kale ima soo harin lacagtii noolin bay noqotay bay tiri markuu waxay tiri gaadhigii markaan saa usoo fuulay ilaahay amarkiisa waxay tiri dee waad aragtay gaadhiga dee Afrika marka la koro rakaabu iska sugaya ayaa waxaan ku yidhi maxay malaha dadkana dee dhowr qof bay iga soo horeeyay anaa ku xigay ayuunba waxaan ku yidhi bay tiri waxaan cunugii ugu yaraa adigu labada kale caadi bay yihiin cunuga ugu yaraa oo ilmo yar de marka ahaa ma aqaana bil iyo laba wuxuu jiray ma garanay waa iska umulba miskiinta ayaa waxay tiri caano ka waayay naaskayga markuu naaska caano ka waayay de maxaan ku idhaahdaay uu nuugay caano iyo waxba ka waayay oohin afka dalooshada isku ooy gaadhiga waxaa laleeyahay walaal maxaa cuno ilmaha hayo ka oohinaya dee wax sii
aniga waxay tiri waxaan u hayaabay tiri oo falaasta iigu jira biyo biyihii baan intaan u qaboojiyo sokor yar ugu daraa waan siiyaabay tiri biyi markuu yara cabo sokortii yara cabo waxay tiri uu yara gam'aa hadhow soo kaca wow marka gaadhiyada markay dhexda soo socdaan waad aragteen Soomaaliya waa laga degaa baqaaxiya la tagaa cuntaa la cunaa masquuliya waxbaa la galgalaa ayadoo ay soo baxda masquusheedii waxay gashaa meeshaas biyo iyo hadii waxa halka yaaliin bay iska soo caagad yar ku soo shubataa iyo falaastii wax ku soo shubataa gaadhiga ku soo noqotaa cuntiyo xumir raadiso marka waxay tiri wiil baa marka waxay tiri dadku isku garaad maahay wiil gaadhiga saarnaaba ii fiirsaday bay tiri wuxuu arkay bay tiri dhowr istabood aanu degaynin markii dambe istabtii saddexaad markii la soo gaadhay wuu degay wiilkii waxay tiri cuntu ii soo iibiyay waxay tiri caano iyo shaah iyo caagad weyn iyo koob weyn igu soo shubay bay tiri caaga waxay tiri wuu ii keenay waxay tiri ilmihiina weli marna wawdo haya marna uu seexanaya waxay tiri koobkii caanaha ahaa ayaan waxay tiri dhaladii carruurtii ugu shushubay bay tiri waxba isma dheera bay tiri saddexdaba waa majoojo kana ha ugu sii darnaadee dee sheekaba waa ta dambayse waxay tiri masaasadihii baan ugu kala shushubay carruurtii shaahii iyo caanihii afkaan wada gelgeliyay cuntadii waxay cuntay cunaya ma jirta bay tiri cuntadii baan anigu iska cunay bay tiri biyaan iska cabay bay tiri balinu caana naaska ka helo waxay tiri magaaladii aan ku soconay baaban soo galay ilmihii way yara aamuseen bay tiri way yara degeen ilaahay wiilkaas daan maanta ogaan lahaa bay tiri meel uu dunida kaga nool yahay wiilkaas maanta علشان maskaxdayda weligay kama baxa bay tiri maanta hadaan ogaan lahaa wiilkaas meel ka soo dunida ka jooga waxay tiri waan hadaan xitaa wax iga baahnaan xitaa waxay tiri waan salaami lahaa oo u mahad celin lahaa bas hada gaadhigii baan ka degnay waxay tiri waan u mahad celiyay gurigeygii baan iskaga laabtay hawlaha caaniyo wax baan iskaga soo iibsaday oo waxay tiri biil baan meel ka qaadanayay bay tiri dukaan yar ka qaadanayay biilkan waxay tiri isma balahan dhibkana kugu dhacayo waxba kama sii qaadanin war hebelo waxay soo dirnay ma jirta bay tiri bas marka waxay tiri maxay biilkii dukaankii baan tagay caaniyo wax ka soo qaatay hawlahaygii iyo waxa dhanba ay dhamaystirmay diyaaradeedii baan soo raacay wadankaygii baan iska tagay dhowr sano ka bacdi ilmihii ii koreen wax ii baranayaan aniga shanta ilmo dhacan ku jiro maxaan ku yiraahdaa warqad fasakhaada ka qaatay ilaa meherku maba hadda iska meheri uno iskaga tagin leen diinta islaamku ay ka furaysaa waxay tiri oo shanta dhacan ilmo ku jiro horta isagii oo balanbalayo bay hoofaya waxay tiri ha u taga reerka yaga waxay yiraahdo waan idin baryaya qalad baan ka galay xaaskaygi waan rabaa xaaskaygi ilmahaygi waan ku noqonaya aad u sheekada reerkii baa waxa la igu yiri bay tiri maxay la soo wacay waxa la igu yiri bay tiri wax ma ku sheegaha maantana waa adduun barina waa aakhiro ninkaas isaga nafsi galay adigu nafsi ha galen ha qof ha noqonin maanta uu ku baahan yahay naagtiina way kala adigu nafsi ha galen adigu ninka ma aragtay ha ka guranin nafsi iskaga noqon ninkaaga si hadii la eegana fasakhaadiya wixii xeeyo kama jiraan adoo alxaasil waxay tiri maxay hayde maya waan ka soo fikiraya way soo fikirtay adigu marka wali nin may guursanin laakiin waxay tiri dad waan iskala sheekaystay ismaanaan fahmin nin walba la sheekaystay markaan arkay inuu ilmahayga ma aragtay ama naga seexi ama naga aamusi ama walaal markaan ku soo wacnaba ma ilmuun baa ka garab qaylinay markii la yiri waxay tiri anigoo yar oo wallahi guuru baahan waan ka gaabsaday bay tiri dib aan isku noqdo waxaan idhi bay tiri walaale waad arkaysaa inaan nin kasta oo maanta kula hadlaba aad ilmahaagii uu arki kari laayuu kuleeyiga aamusi iga seex laakiin kan waa kii dhalay wuxuu doonay ha noqdee bal iska soo celi jabbo waa ka dambeeyay bay tiri haye baan idhi bay tiri xafiye bug baan idhi haye baan idhi waxay tiri wadaad adeerkay ah oo markaa u tegay baa gurigiisa waxay tiri la tegay meherkii waxba aad la cusboonaysiiyay qada yar baa la karsaday telefoon maxay ahayd waxay tiri lacag yar baan u diray telefoon uu ku iibsado adoo $500 baa waxay tiri wax saasaan diray oo waxay tiri qadadana lagu kariyay telefoonna uu ka iibsaday telefoonkii baanu ka xiriireynay saan telefoonkii uga xiriireynay magaaladii u deganaabo ku laabtay magaaladii markuu ka laabtay telefoonkii uu daminayaan la igama qabanayaba telefoonkii anigoo yaaban bay tiri oo ama kaagsan oo labay tiri maxaa qaldan ayaa markii dambe maalin baa anagoo iska sheekaysan aan ku yiri wiilkii in adeerka ahaa maalinkii dukaanka ii tilmaamaysay walaalo telefonkiisa isi aan la hadloon salaame iyo haye telefonkii wiilkiisii
تلفونكي ويلكي مركو يسي ويلكي بان وعي ويلكي مركان وعي waxaan ku yiri walaalo تلفونكي wiilkii iga qaban laayahay maxaa qaldan markaasuu igu yiri wallahi mana shaqeeyo wuu iska joogaa dee maxay hayday mar dhaweyd baan wada hadlaynay muxuu kaaga qaban laayay bal sug xaaskiisaan wicii xaaskiisa ahaa oo maxaas buu leeyahay markaasuu igu yiri maxaa dhacay sumuuda joogaan hiblaayo markaasaan haa allaha maan ogeyn inay kala tageen baan moodayay markaasuu ma way wada joogaan bal sug xaaskiisaan wicii waan damiyay telefoonka xaaskiisu wacay wuxuu yiri maxay hayday sidaas adigu markaasaa maxay hayday wiigu soo celiyay wiilkii wuxuu yiri waan u sheegay uu soo wacaya wuu soo wacay markaasuu yiri maxay ahayd markaas waxaan ku yiri haye maxay telefoonka iga damsanaa qolkan kaga soo tagay oo maxay niman iskaablo on la joogo oo dududu adu been buu damcayno waxay ugu harqay waxaan ku yiri bay tiri dhageyso walaalo ama iskaablo la degano ama gurigii hooyada ayaa aabaha degano maxaad beenta igu sheegaysaa aniga ii leedahay maxay ahayday naagta waan kala tagnay iyo waan furay maxaad ii leedahay reer dhan ood qabto oo la joogto maxaad ii leedahay maayo walaal waxaa ma jiraan waxaas ma jiraan markaana waxay ku leedahay process baan rabay inaan u bilaabo reer waabanu bilaabayba lacag waxay tiri $6,000 ah aan u diray xawaalada taaloona weli qaadanin oo rabaa inaan u sheego Malaysia ana dhibay tiri aad on rabaa bay tiri processka inuu kala socdo halka ka wato oo uu halka ka soo anbabaxo anagu iyo carruurtana holiday ugu tagnaan rabaa bay tiri baladinka sheekada eeg lacagtina way maqan tahay xawaaladii bay ku maqan tahay reer wayba tagtayba lacagtii ay tiri xawaaladii bay wacday waxaana dhibay tiri lacagta la ii soo celiyo markaas la igu yiri bay tiri lacagta waa la qaatay bas way iska aamustay gabadhu way iska samirtay halkiiba faraha kaga qaaday sheekhiya culimay weydiisay waxay ku tiri ninkaas saas mana ifurin mana iqabo telefoonuna maxay hayday ii galaya maxaa talaa waxa lagu yiri qofka bilaadanka hadaad adigu rabtidna waa ku ka hadaanad rabina dib ma laha waad u sheegi kartaa oo anaga telefoonkiisa siin kartaa anaga raadinayna anaga warqada kaaga soo qaadana hayanda anigu aan baaban ka gaaray bas waxay tiri go'aan markaan ka gaaray waxay tiri maxay ahayday warqadii baa waxay tiri maxay ahayday la iga soo qaaday oo maxaan ku yiraahdaa dad tola iyo madaragtay niman culimo oo darsada iga soo qaadeen ka bacdi waxay tiri nin kale aba iska guursado waxay tiri carruur kale iyo reer kale aban iska yeeshay ilmihii way koreen bay tiri ilmihii markay koreen ayaa waxa dhacday bay tiri maxay ahayday naagtiisii adigu waxay tiri naagtiisii ilmahay u dhashay iyo ilmo kale oo haysatay wixii la isla korsanayay adoo la isfahmi waayay ilmihii bay arki kari waayeen isaga waxay noqotay inuu soo baahdo carruurtii markaas wuxuu yiraahdaa hebel ii weydii lacag hebel lacag ha ii soo diro hebel igala hadal hala ii qaado hala ii kaxeeyo hala ii dhoofiyo carruurtayla waxaan ku dhibay tiri dhageysayna adeer haa warnabada lagu sii haa ilmahaga soo ilmo waaweyn maaha haa soo nabaradooda ma haysatid haa soo isma taqaanaan iska minbir xitaa kamay qaran way bartay xitaa waa biin la xiriirayo waxaas ku dhihi jirtay soo iska soo kulmaan xiriirsiin oo kuma barano ilmaha teleefanadooda dhan ma haysatid haa ilmahaga walaal la xiriir aniga adigna shaqo isku melihin kiyo kabna lulay kabna laalaadinay oo saa u bay hoofay oo waxaan ku iri sakaraada oo rafaadsan oo waxay tiri ilkii ka wada daateen oo timihii ka biibeen oo noloshu u eegay siduu u eegyahay aad yaab u dhimanayso ka wiswisayso yaa ay Soomaaliya dhex taagan yahay bay tiri maalin walba leeyahay hebel lacag ay soo diro hebel oo baqal ay soo dir hebel oo kan gabdhuhu way iska naxariis badan yihiin oo haday rabaan u diraan haday rabaan uma diraan laakiin kuwii wiil lahaa labadii wiil waxay yiraahdeen ma arki karnana wax aaba la yiraah naguma soo hadal qaadi kartid maruu soo wactay muxuu hooyadii baa xanuunsan aabahay baa xanuunsan walaalahay baa kana maalinba sheeko cusub soo jeediya inamadu waxay yiraahdeen anaga aaban waxba nagama gelin hooyana waxba nagama gelin walaalo wax nagama gelin ninkaasi nama yaqaano horta ka ugu darnaado kii ugu yaraay 2 bilood jiray oo caana la'aanta ku soo diray ha ugu darnaado kaasi horta ma maqli karo maalin walba waxaan ku yiraahdaa bay tiri hooyo waan ku baryayaa in kaarabaha ha ka guranina iskala hadal nag wayga diideen bay tiri marka rag oo aan sheekadan hadda waxay tiri waxaan kuugu sheegayaa inaad ummadda la wadaagto
ood maad aragtay dadka u sheegtid aan aniga kuula wadaagayaa bay tiri marka ummadana horta weynaadaaba wanaagsan la tuuraana la tuugo laakiin ragga Soomaaliyeed waxaan uga digayaa naagta ama ha kala tagaan ama ha wada joogeen inaanay ilmahooda iyagu dayacin oo ilmahooda maad aragtay xumaynin oo hadday wax kasta u heli karaan waxay u awoodaan ilmahooda siiyaan kowde tanaagana waxaan kula talinayaa inaanay ma aragtay isdhiganin hadda gabadhan iyadoo yar oo ilmo yar ah waxay tiri 18 sano waan ku hooseeyay bay tiri iyadoo ilmo yar saa loo galay ka waran hadda maanta maskaxdeeda wax ku dhici lahayd waalan lahayd hadii ilaahay baa badbaadiyay iyaduna naag adag bay ahayd marka gabdhahana waxaan leeyahay weligiin maad aragtay dhaxda xirta oo naago karti la noqda marka storygeeni intaas ku soo gabagabeynaya subscribe like comment share hadda story kale rabtaan insha Allah qaybta comment-ka igu soo qora hadda wax story haysiinay la soo wadaaga anna wixii ka gaaro waan idin la wadaagi doonaa insha Allah sidaa iyo nabadgelyo iyo is arag dambe oo xiiso leh